maanta oo ay taariikhdu ay tahay 11 Oktoobar waxa ay dad badan oo ku nool wadankan iyo wadamo badan oo qaaradaha adduunka kamid ah ay u dabaaldegayaan waxa loo yaqaan Halloween. muuqaalkan aad arkaysaan waa gudaha suuqa laga dukaamaysto ee O6 ee magaalada Jönköping ee dalkani Sweden. waxana halkan ay gabdhahani ay ku soo bandhigayaan qoobka ciyaar cabsi leh iyagoo u dabaaldegaya Halloween-ka. waxaan filayaa in aad sidoo kale aad aragteen caruur si cabsi leh u labisan oo wadooyinka lugaynaya. haddaba su'aashu waxa ay tahay horta waa maxay Halloween? Halloween waa waqti ay dadku ay sameeyaan khiyaanooyin kala duwan sida in la iscabsi geliyo, filmaan cabsi leh oo la daawado iyo wixii la mid ah. waxaan ku bilaabaynaa taariikhda dhacdadani oo soo jirtay muddo 2000 oo sano iyo in ka badan laga joogo. dhacdadani ayaa waxa ay ku bilaabatay dabaaldeg loo yaqaano Samhain, kaasi oo loogu dabaaldegi jiray bilowga jiilaalka mugdiga ah, isla markaana ay ahayd bilowga sanadka dadkii cawaanta ahaa ee ku noolaa wadamada Ingiriiska iyo Ireland. asalka Halloween waxaa dib loogu celin karaa dabaaldegii hore ee Celtic ee loo yaqaan Samhain, kaasi oo la qabtay November 1 ee jadwalka casriga ah. waxaa la rumaysan yahay in maalintaasi ay nafaha dadkii dhintay ay dib ay ugu soo laabtaan guryahoodii. sidaas daraadeed dadku waxa ay ku labisan jireen sida maanta oo kale dhar laga baqo, iyagoo sameyn jiray dabshid si ay isaga difaacaan ruuxaantaasi. sababta dadka wajiyadooda ay u bedelaan oo ay bahalo ay isugu ekaysiiyaan ayaa waxa la sheegay inay tahay in dadkaasi sida ay aaminsanaayeen ay tahay sida kaliya oo ay kaga dhuuman karaan dadkooda reer aakhiraadka ah ee maalinta 11 bisha Oktoobar soo baxa. waqtigan ayaa dadku waxay aaminsanaayeen in ay isku milmaan nafsadda bini'aadamka iyo midda ilaahyadooda. waxay aaminsanaayeen in waqtiyadaasi dabaaldega in ay dhulka ay soo booqan jireen dadkii horay u geeriyooday oo ka kala yimid caalamyo kala duwan. waxa kale oo ay u dabaaldegi jireen isla waqtigaasi waxay ku sheegeen ilaaha qorraxda iyo kan dadka dhintay. waxaa loo mahdin jiray ilaaha qorraxda inuu ka difaaco qabowga jiilaalka. sidoo kale waxa ay aaminsanaayeen in ilaaha dhimashada uu soo ururiyo dhammaan dadkii dhintay 11 Oktoobar oo uu ka dhiga xayawaano. markii diinta Kiristaanku ay soo gaadhay dhulkii ay ku noolaayeen dadkaasi cawaanta ah, ayay isku dayeen Kiristaankii in ay meesha ay ka saaraan ciidan oo ay samaysan jireen dadka cawaanta ah. waxa ay sameeyeen ciid kale oo iyaduna ku beegan isla waqtigaasi. ugu dambeyntii waxaa dhacday inay isku milmaan ciidii cawaanta iyo midii Kiristaanka oo ay halkaasi ay ka dhalato waxa maanta loo yaqaano Halloween. waxyaabaha ay sameeyaan dadka xilliga Halloween-ka waxaa ka mid ah khiyaanooyinka sida dariska oo laga naxiyo. waxa kale oo la isticmaalaa sawirada xayawaanka kibiliga iyo bisadaha kuwooda madmadow oo ay aaminsanaayeen in ay xiriir ay la leeyihiin sixirka iyo dadka dhintay. waxa kale oo ka mid ah ciyaaro la sameeyo qaasatan xafladaha caruurta, kuwaasoo asalkoodu ka soo jeedo ciyaarihii ay samayn jireen cawaantu si ay u qiyaasaan mustaqbalka. ugu dambeyntii haddii aanu eegno dhinaca diinta Islaamka iyo waxyaabaha ay ka qabto arrimaha noocan ah, ayay tahay mid iska cad in waxyaabaha la sameeyo dhacdadani ay yihiin ficilo shirki ku dhisan. taasina waanu ognahay booska ay ka joogto diinta Islaamka. dad badan ayaa ka qayb qaata dhacdadan iyaga oo aan wax fikrad ah ka haysan taariikhda iyo macnaha ka dambeeya. haddaba waalidka muslimka ah waxaa laga doonayaa in caruurtiisa uu ka wacyigeliyo dhacdooyinka noocan oo kale ah. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. waxaadna nagala socotaan Bulqaas Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media, ha ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddii se aad tahay macmiil soo noqday, sidoo kale ha naga ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto. wixii tale iyo tusaale iyo aaraa'diinna ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinacyada commenteska iyo messageska. aad baad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.